تسجيلات أمناء هواء تقدم ولأول مرة صوت مع صورة لتفسير القرآن الكريم للشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصفا والمروة يعني بوت الصفا يمد المروة اللي يرادوا لبضوا من شعائر الله وي يعني من مناسك الحج وي meelaha Allah lagu caabudo oo xajka maartay loo calaamadeeyay oo cibaadada maartay loogu talagalay ka mid tahay Safa wal Marwa xaway waa labada buurood oo lagu dhaxdooda lagu ordo marka la xajiyo marka labada buurood buu Ilaahay tilmaamayo subhanahu wa ta'ala Safa marka asal ahaan luqad ahaan waxa la yiraahdaa dhagaxa macnaha siman ayaa la yiraahdaa sulubka la yiraahdaa Safa Marwana waxa la yiraahdaa dhagaxa yaka ayaa la yiraahdaa marka labada buurood dhaxdooda waxa weey waajiba ku yaala waxaana la yiraahdaa oo xadiis saxiix ah sheegayaan markii nabi Ibrahim haweenkiisii Haajir iyo wiilkiisa Ismaaciil markii meesha looga tagay oo wiilkiiba oon u dhiman lahaa orodkii oo rabbi labada buurood dhaxdooda oo hadda mid ay fuuleys oo islahayd bal in dad aragto ay ka fiirinaysay sacyigaas ayaa waxa weey Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka dhigay markii mid la xusuusto oo muslimiintu marka ay sacyiyaan lagu waajibay qof walba xajinayo inuu sacyiyo marka oo orodka uu ordo markaas waxa weey waa shukrin iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala in la isugu dileeyo oo loo bariyo sidii maartay gabadha muslimada Allah uu bariday oo ugu dileysnayd oo hadana Ilaahay uu ajiibay oo waxa kale laga qaadanaya dadka hadii ahlu tawxiid yihiin Allah washidaan oo tawxiidku khaalif yahay oo ka dhab yahay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uga gaarayo oo reerkaas meesha banaan loo tagay markay tiri macnaha loo tagay Allah baa ka tagay ayaa yiri markaa waxay tiri idan la yubayyi'una Allah nama dayacayo marka sidii Ilaahay uu gargaarayo wixii isku haleeyay baa laga qaadanaya qisada marka qisada aad u muhiim ah oo dadka iimaankooda maartay wax tarayso weey sida daraadeed Ilaahay wuxuu ka dhigay maartay wax la xusuusto oo qisa aan ka tirtirmeen muslimiinta noqotay oo sano walba la xajiyo wala soo xusuusanaya marka labada buurood dhexdooda maartay lagu ordaa 7 wareeg 7 jeer waxa jirtay marka carabtu qabla islaam labada buurood waxa la yiraahdaa waxa u saarnaa laba sanam oo mid la yiraahdo isaaf midna naa'ilah la yiraahdo labada sanam baa u saarnaa marka labada sanam bay maartay taaban jireen buurta fuulaan safa fuulaan oo mid taarsan bay hadana dhigan jireen ordi jireen oo mid kala fuuli jireen marwo inta fuulaan bay hadana sanam kala taaban markii islaamku yimid oo asnaamtii la burburiyay oo islaamkii maartay inaan Allah qeybti la caabudi karin ay ogaadeen marka waa ka shakiyeen macnaha orodka la ordaayo laba buurood dhexdooda ayaa xarig ka galay dadkana waxa la yiraahdaa oo ood iyo khasriga iyaguna waxay xajin jireen maartay oo aadi jireen sanadkii maartay sanamka manaad la yiraahdo oo meel al-mashalla la yiraahdo ku yaalay sanamka markay tagaan waxa la yiri Safa iyo Marwa ma aadi jirin marka arrintaala marka tii maadaama xaalka jaahiliga hore saas ah oo sanamada tarnaan jireen qoomkan reer ansaarna maartay oo reer Madiina ay fikrad gaar ah ka qabeen ayaa su'aalo ka yimaadeen in loo meesha lagu ordi karo dhexdooda marka aayadan waxay soo degtay in dadka marka xariska laga qaado oo inay maartay tahay sharci tahay oo Ilaahay jibay lagu barayaa inna Safa wal Marwa min sha'air Allah sha'airta Allah ay tilmiyin faman hajjal bayta ruuxi hajjiyada li uqas baytka oo i'tamara ama umra u aada ama hajj u aada hajj iyo umra marka farqiga u dhaxeeya hajku waxa weey waa midka waa ziyaarada maartay baytkaas la aadayo oo يعني انتجي هالمر لا يسكت دون أركان الإسلام كمدة يعني أركان الإسلام كمدة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الله تدخل كل هذا البيت إلا حجه ولا الوقت ولا زوج زيارته روحي أولا بالير أسرة ومن كفر في كفريا وعمرك الله قال ويانا فإن الله غني عن العالمين الله غني بكل عالمين تليري عمرنا وحوي يدنا ونكسنتها إلا سميه مرك أعماش عمرنا وكسلنتها أعماش حجك وهي كل عمرنا مركي ماشي لتوه oo kacbadii lagu dawaafo 7 jeer oo ragcateen la tukado kadibna labada buurood Safa iyo Marwa markaas dhexdooda lagu ordo 7 jeer amrada marka waa dhamaatay oo hal maalin hal gelin bay kugu dhamaanaysaa laakiin xajku waxa weey markii inta la sameeyo waxa la sugayaa hadana maalinta 8aad oo Dhulxijja la sugayaa maalinta markii la gaaro oo bishii Dhulxijja qofka waxa laga yaabaa inuu Shawaal yimid ama Dhulqaada yimid markii la gaaro 8da Dhulxijja ayaa loo baxayaa mina markii loo baxaa laga sii gudbayaa oo waxa la aadayaa Carafa markii laga soo noqdo hadana mina loo soo noqonayaa kadib waxa weey hadana tawaaf al-ifaada kacbada baa loo soo noqonayaa marka kadib hadana mina muddo la joogaya
ilaa maaragtay maalinta tobnaad kadib 3 maalmood oo kale in lasii joogo oo maalinta 8 iyo maalinta 9 iyo maalinta 10 iyo 11 iyo 12 iyo 13 saas ay isku noqonaysaa ma iyadoo maalmaha dambe marka maalin laga tirtiro oo Ilaahay yiri faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi bil ma qof hal maalin baa macnaha iska sunnah oo ninkii joogana oo fadhi badan tahay tagana martay wax xarid ma marka labada cibaadada oo maartay xajka iyo umrada labadaba midii loo tago halkaaba waxa la yiri faman hajjal bayt oo ya'tamara fala junaha alayhi wa haraja kurkiisa ma aha bale an yadawafa bihima inuu ku dawaafo maartay labadooda oo labada burood dhexdooda ordo marka xajkiina waa kamid tahay umradina waa kamid Aisha waxa wiilkii ay u ahayd habaryarta oo la oran jiray Urwa bin Zubair oo caalamka muslimiinta ahaa taabiciinta oo cilmiga badan kamid ahaa Urwahaas wuxuu aayad u fahmay in ujeedadu tahay wax dhigan ma aha qofkii ku dawaafa oo inaan maartay yani la iska daayo oo kale uu ka fahmay marka Aisha u saxday waxay tiri hadii la iska deyntii laga hadlayo waxa la oran lahaa fala junaha alayhi Allah yadawafa bihima wala oran lahaa mar wax dambiga kurkiisa ma aha hadii iska daayo wala oran lahaa laakiin hadda waxa la yiri fala junaha alayhi an yadawafa bihima inuu ku dawaafo marka waa la iska deenayaa haddana nabiga sunnadiisii alayhi salaatu wasalaam bay kamid ahayd oo wuxuu yiri dadka iga qaata xajka ma khudu an manasikakum biir ma yani sida loo cibaadaysanayo xajka aniga iga qaata yiri fiirsada isaguna waxa la yiri dhexdooda ku ordayna oo wuxuu yiri abda bima bada Allah kan Allah ka bilaabaya oo marka hore safabu ka bilaabay oo fuulay bali wuxuu yiri waxaan ka bilaabayaa kan Allah ka bilaabay ma wuxuu kale yiri nabiga alayhi salaatu wasalaam is'aw fa inna Allah kataba alaykum as-sa'i orda bali laba burood dhexdooda Allah baa idinku waajibiyay maartay saciga marka waa waajib baa culimada qaar leeyihiin qaarna waxay leeyihiin oo waliba yani aad loo adkeenayo inuu rukn yahay oo arkaan xaj kamid yahay cibaadada xajka waxay leedahay macnaha arkaan iyo waajibaad iyo sunan balad marka arkaantu hadii aad ka tagtid mid kamid ah xajka ayuu ma ansixin waa inaad sana kale hadana xajid baa laga doonayaa xajkuna waa fariido qofka laga rabo cimrigiisa hal mar marka hadii ay hal rugni ka tagtid waxa weeye yani cimriga marka laga rabo inaad xajid xajka xajul fasid buu noqonayaa inkastoo laga rabo inaad dadka la dhameysatid oo iska tagin haddana waxa laga doonayaa inaad xaj kale laga rabaa maadaama arkaantu waa afar mid horeysa waxa weeye waa yani ihraamka weeye la ihraamanayo tan kalena waxa weeye waa dawaafka lagu dawaafayo Kaabada iyo Arafa wuquuf Arafa iyo sacyi bayna Safa wal Marwa intaas afartaas waxa weeye waa arkaan xaj hadii mid kamid ka maqan tahay xajkaaga waa faasid rukni weyn ba ka maqan waajibaadka marka waa badan yihiin oo waajibaad badan baa jira sunankuna waa jiraan waajibaadka hadii aad ka tagtid waxa weeye waxa laga rabaa inaad neef baraysid xajkaaga oo ku ansaxaya suurada laftigeeda looga hadli doonaa xajka xogaa faahfaahintiisa suurada ka sheekayn doonta gadaal oo mowduuc dhan baa ku jira suurada xajka looga hadlayo ومن تطوع خيرا روح تطوع خير بالي او خير يعني زياده عليه هذا او عبادات وحوي وحنا واجبات وحنا تطوع oo qofkii baa sameeyay iyadoo Allah ku fardiilay marka martabadiisa waxa way korba uu qacaya Ilaahay ku darajeeyay ama dunuub looga daadanaya ama darajadiisa kor loogu qaaday marka qofkii tadawwa khayr baliyay oo xajkii iska badsada ama umrada iska badsada fa inna Allah waxa way shaakirun wa rabbi shaakira oo garaale noqonaya علم أهو أحواش أدومينكم إن الذين يكتمون دول كقرين هي ما أنزلنا وحي عن سودة النبي ومن البينات وحجوينك على أعضائها والهدى يهنون من بعد ما بيناه كدب مركي أن بيناه أبيا مني للناس دفع أبيا مني في الكتاب كتاب أبيا مني دفع ساس أبا إلهي وعلمك قرين هي عن سودة النبي إن الذين يكتمون كوا قرين هي ما أنزلنا وحن سود السنية من البينات بيناتها وآيات عادها والهدى يهنون من بعد ما بيناه كدب مركا أبيا مني للناس دفع أبيا مني في الكتاب كتاب أبيا مني حالات دفع كدب دفع قرنها هي علم لا أولئك كوا يلعنهم وحل عنبها هي الله والعنبية يلعنهم الله والعنبية ويلعنهم اللاعنون كوا لعنبنا وحل عنبنا والعنبيا اللاعنون وحويا ليري الملائكة والمؤمنون maxay yeelay waxay lacnadaan yani man la'anahu Allah wa rasuuluhu cidda Allah iyo rasuulkiisa lacnadaan ayay lacnada hayaan baliyuna waa taabiciin waa raacayaan cidda Allah lacnado iyuna waa lacnadayaan marka sida u xuntahay maarka cilmiga oo la qariyo bay aayadan daliil u tahay oo cilmiga lama qarin karo waa arrin khatar ah oo lagu halaagsanayo dadkii hore oo ahlu kitaabka waxyaabaha Ilaahay ugu carooday kamid ah qarinta cilmiga iyo leexinta aayadaha
marka cilmigaa siduu ahaa in loo sheego oo bani aadamka wuxuu yahay wax maaragtay nusqaan badan haddii isagu uu naaqus noqdo oo gafo oo dambaabo cilmigii macnaha muujin lahaa inuu qalab sameeyey xataa waxaa laga yaabaa inuu nabcaado inuu sheego ayaa laga yaabaa waxaana wanaagsan waxa weye sida cadaaladda waxa weye qofku inuu aayadaha ilaahay sida yihiin u gudbiyo waxaana la yidhi nebigu wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam man su-ila can cilmin qofkii cilmi la weydiiyo yani yaclamuhu uu og yahay fakatabahu markaa qariya uljima bilijaamin min naarin yowma alqiyaama waxaa lagu xakameeyaa aakhiro buu yidhi xakame oo naar ah afkaa laga geliyaa maaragtay oo bir naareed ayaa afka looga xirhaya sida maaragtay xoolaha loo xakameeyo afka birka lagu geliyo kaleba ugu xirnaanayaabaa li oo cadaab waa wax lagu cadaabayo wey marka waa arrin aada u xun abu hurayra wuxuu ahaa nin xadiis badan aada u wariyay xadiista markay dadku la yaabaan hadalkiisa badan oo intaa uu sunnadii ka sheekaynayo wuxuu ohan jiray wallahi lowlaa aayatu fii kitaab illahi haddayn jiri lahayn buu yidhi aayad kitaabka ilahi ku jirta buu yidhi idinma sheegeen waxba buu yidhi ee wuxuu ka baqahayaa macnaha inuu cilmigaa maaragtay inuu qariyo marka ilaahay wuxuu yidhi ila aladiina taabuu kuwa maaragtay badbaadahaya waxa weeye ila aladiina kuwii mooye taabuu soo noqday oo allah usoo laaftay markay fogaadeen oo cilmiga qariyeen kadib soo laaftay oo allah usoo noqday oo istifaarsaday oo inay maaragtay ka toobad keenaan go-aansaday wa aslaxuu oo islaaxiyey oo camalkoodii wanaajiyey oo cilmigii kadib daahiriyey wabayanuu oo bayaamiyey waxay hore u qariyeen bayaamiyey kuwa ilaahay subxaana watacaala toobada waa waafajinaya waa ka aqbalaya fa ulaa'ika kuwa atuuba calayhim yani atuuba calayhim toobadii baan waafajinahayaa anna waan ka raalli noqonahayaa wey wa ana waxaan ahay attawaabu araxiim rabbiga toobad aqbalka badan alraxiim oo raxmadda badan marka waxaa laga qaadanayaa toobadu waa iska furan tahay inta maarata qoraxda ka soo baxaysa la yidhi min maqrabiha meesha u dhacdo toobadu waa furan tahay iyo inta qofka ay ka imaanayso maaragtay maa lam yuqarqir alcabdi ma addoonka intuusan qarqarada gaarin oo rubadda ayna naftu imaan toobadu waa furan tahay laakiin mar hadday halkaa gaarto ama ay qoraxda ka soo baxdo maaragtay meesha u dhici jirtay tooba lama aqbalahayo oo toobadu waa xirmaysaa yowma yaatii bacdu aayaati rabbika laa yanfacu nafsan iimaanuha nafna iimaan u tari maayaa layidhi lam takun aamanat min qabl haddayna horay allah u waxidin tawxiid iyo islaam wax u tari mayso nafna baa layidhi mar hadday qoraxda halkaa ka soo baxdo oo aayadihii yimaadaan yani ow kasabat fii iimaaniha khayran haddii xataa ay intay islaamtay oo tawxiid qaadatay ayan daacad fiican samayn ee dembiyo badan samaysayna tooba xataa markaa uma furnaa layidhi waa intii baa lagu khatimahayaa camalka ila aladiina taabuu wa aslaxuu taana waxay faa'iidaynaysaa qofka marbuu odhanayaa waan toobad keenay afka keliya mana toobad keenin oo dhaqankiisii weli waa sidii marka hadalka u horreeya qofku leeyahy waan toobad keenay inaan lagu tirmino in la sugo islaax alcamal maala camalka inuu islaaxiyo oo waa inuu wixii qofku bedelmo siiradiisa waa inay isbedesho maana dadku waxay qaar baa dembi badan si ugu jiraan waxay leeyihin waa soo noqday mana soo noqon isagoo meesha haddana ka wadaa la arkayo marka waxaa la sugaa markii qofku uu saalix noqdo oo suu banaado aayadahana saasaa la isku daba dhigaa ila aladiina taabuu wa aslaxuu dhowr meel bay qur-aanka uga jirtaa fa in taabaa wa aslaxaa facridu canhu waa ilahi hadday toobad keenaan oo markaa islaax sameeyaan ka jeensada maaragtay dadka dambaaba marka islaaxu waa sidaas macna ahmed bin xambal raximahullah baa waxaa la yidhi nin baa maaragtay ka toobad keenay maaragtay ficilka fawaaxishkii ka toobad keenay laakiin wuxuusa iska dayn siirada haweenka markaa wuxuu yidhi wahal lihaada tawba buyir oo tawba ninkaasi keenay buyir maba toobad keenin buyir weli hadduuba saas yahay camalkiisi ma islaaxin maa marka islaax baa la doonaya qofku markii dembi uu sameeyo oo ka toobad keeno waa in camalkiisiina uu wanaagsanaado maaragta faman aamana wa aslaxa baa mar leeyahy ila aladiina taabuu wa aslaxuu yani faman taaba min bacdi dulmihi wa aslaxa baa leeyahy faman taaba kii toobad keena min bacdi dulmihi wa aslaxa oo camalkana wanaajiye marka dadka dhaqankooda in la fiiriyo waa muhiim qofka inta jarimo weyn sameeyo oo dadka islaamkaa ku xadgudbaaba haddana waxyar kadib wuxuu iska odhanayaa waan toobad keenay ka dhabna maaha waa in marka la sugo bal dhaqankiisa inuu isbedelo qofka waqti baa loo baahanaya qofka haddii uu cilmi leeyahay waxa weeye waa martabo aada u fiican oo la ammaanayo weeye oo waxaa la yidhi qofka maaragtay ahlu cilmiga ah oo cilmiga ku camal falaa xataa waxaa la yidhi cid walba allah u weydiinaysa istikfaar xata alxiitaanu fi lbixaar xataa maaragtay kalluun ku jira badaha ayaa u istikfaar weydiinaya layidhi laakiin mar hadduu cilmigii qariyo xaalku waa isbedelaya waxau noqonayaa malcuun buu noqonayaa oo koonkeena lacnaday yalcanuhum allahu wayalcanuhum allaacinuun laakiin waxaa taana ka badbaadahayaa la yidhi ila aladiina taabuu wa aslaxuu wa bayanuu oo bayaamiyey wixii ay qariyeen fa ulaa'ika atuubu calayhim wa ana tawaabu raxiim marka waxaa la isweydiin karaa ma jirtaa mar cilmiga la qarin karo cilmiga waxaa la yidhi waxaa la qarin karaa mar maaragtay oo maslaxa ay meesha ku jirto macna oo qof baa la doonayaa diinta ilaahay in la baro diinta cilmigeedu marka waasac wey waa ballaaranya ma ahan marka wixii o dhan hal mar inaad maarata hal fadhi wax allaale waxaa taqaanay o dhan hal mar inaad ku daldalaysid maaha ee waxa weye qofkii siday u kala muhiimsan yihiina loo barayaa islaamkii baa la barayaa caqiidadii baa la barayaa markuu tawxiidkaa fahmo oo uu qaato
waxa la barayaa hadana salaadii baa la barayaa sakadii baa la barayaa sida arrimo kala muhiimsanaayeen baa loo barayaa oo markii Mucaad nabigu diray alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri falyakun awwal ma tad'uun ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah fa inhum adaa'uka lidhalika hadithu ad'an arrinkaas fa'alimhu barbu yiri anna Allah farada alayhim 5 salawat yani fi kulli yawm wa layla hadithu ad'an waxa bartaa yiri yani in ilaahay ku farad yeelay sadaqatan tuuqadu min amwaalihim min aghniyaihim laga qaadayo faturadu ala fuqaraa'ihim fuqarada lagu celinayo marka waxa la yiraahdaa waxa laga qaadanayaa tacliinta markay tahay waa al-aham fal aham midka muhiimsan baa laga bilaabayaa waxa lagu xijinayaa hadana kan muhiimsan baa lagu xijinayaa marka cilmigaas qarin maahan kaas kale waxa weeye waa qofkii loo tarbiyanayaa hada cilmiga inuu qaato oo cilmiga ayraayir loo barayaa rabbaaniyin marka la macnaynayo aayada quraanka ku jirta suurada al-imran rabbaaniyinta waxa la yiraahdaa waxa weeye alladina yurabbuna an-nas bi sagaa'ir al-ulum qabla kibariha yani dadka cilmiga kiisa awaailka oo bilowga ku tarbiyaya inta kiisa waaweyn loo gudbay macnaha waxa weeye arrimaha asalka oo sahlan oo xaqiiqada dadka ku tarbiyaya marka dadka maarata wax kala gartaan kadib waxa weeye waxyaabaha badnaa ahkaamta ah oo takaliifta kala badneed hadana qofku soo bandhiga waxa kale oo la qarin karaa la yiraahdo cilmiga marka qofka laftigiisa uu yahay qof aan toosnayn oo aayadii makaankeeda aan dhigayn ay sax u daliishanayso waa la qarin karaa macnaha oo qof waxa jira midna inxiraafsan oo hadii aayadii marka uu maqlana daliil ka sii dhiganayo inxiraafkiisii oo si qaldan u daliishanayo taasoo kalena marka waa laga qariyaa waxa weeye la yiraahdaa midalan xadiis waxa jira rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam Mucaad uu weydiiyay ma xaqullah ala al-ibad iyo ma xaqul ibada ala Allah weydiiyay marka rasuulku hadana uu jawaabay oo yiri xaqullah ala al-ibad waxa weeye an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an yani xaqul ibada ala Allah waxa weeye biir Allah yu'adhibu man la yushriku bihi shay'an inuu Allah hadaabin kii aanu shariigin marka Mucaad wuxuu yiri afala ubashiru nas rasuulku Allah dadka moo bishaaraya marka rasuulku wuxuu yiri la tubashirhum fayatasiru aw bishaarayna isligan biir oo intay yiraahdaan maaragtay shirkiga maadaama ka baxdeen waxba maar naar arkamaysan inay baacadi iyo cibaadaadkii iyo tacliintii iyo wixii ay ka fariisan baa laga baqahay oo dadkaas Mucaad looga baqmeen iyo wixii la midka ah oo muslimiinta maaragtay toosnayda maaragtay cilmiga lahayd looga baqmeen maaragtay in quruurka ku dhaco oo tajoomaan laakiin waxa looga baqahay waxa weeye waa dadweynaha kale oo maadada badan oo islaamka soo raacaya qaar baa inta maqlaan hal arkaa inay markaas dambiyada iska fogeystaan mar haddii dambiyada fogeystaan wadadii shirkiga waa soo dhawaatay oo inay markaas shirkiga ay hadana u sii dhacaan wax yar baa ka xiga marka qofku markii uu inxiraafsan waa sidaas oo kale waxa la yiraahdaa xajaajkii ninkii loo oran xajaaj bin yuusuf kii dadka la jiray baa wuxuu weydiiyay saxaabi ah oo wuxuu yiri ciqaabaha rasuulku ku ciqaabay maxaa uu adkaa marka uu sheegay nimanka shuftada ahaa inta yiri waa islaamna inta ridoobay xoolihiina dhahay oo markii la soo qabtay marka la taray markii aan xubnaha gacanahoodii iyo indhihii laga riday oo qoraxda la dhigay oo la waraabin nimanka gaalada oo gaalooday buu sheegay marka isku darsaday rido iyo ifsaad iyo dad ay dileen iyo xoolaha ay dhaceen bay isku dareen sida xun baa marka loo ciqaabay marka waxa la yiri daliilkiisa kale xadiiskii oo dad Allah dadkii dawladda ka horyimaada ayuu si xun u leen jiray ma saxaabiga uu sheegay waxa la yiri waa ka shalayn jiray xadiiska uu sheegay ninka ma marka qofku markuu inxiraafsan yahay oo sanadka booskiisa dhigay waxa weeye looma sheego marka waa laga qariyaa marka kitmaanul ilmi lil maslaha daliyada mararka qaar kood maslaxad raadid ayaa loo qarin karaa إن الذين كفروا في كفرهم بالير وماتوا أو دنتي وهم كفار إيوه كفار أو قالوا كدنتي أولئك كوات عليهم بحو كركول أهاتي بالير لعنة الله لعنة الله بأهات والملائكة إيوه لعنة الملائكة وكركول أهاتي والناس أجمعين يدب أوضا لعنة وذكر أهاتي وضد وحل لقوا دابالي وضد أهل الإيمان كأبال فيه فالعنة بيه مركز دبت هذه قالوا كدنتان مكوا سيدا وشكي سمشروا إلا لعنة بيه ولا لعنة ذكره قالوا جودهان إن اللعنة ذكر ولا رن كره لعنة الله على الكافرين على الكاذبين إيوه مسألة اللي تكون خلاف سنة مسلمين ترى سنين لكن واحد حوالي اللي تكون خلافي وحوي من قالوا اللي يقان وهبل من اللعنة ذكره هبل الله لعنة من الله رن كره وما يعتمد الله سيبه من اللعنة ذكره كان مركب علماء قار ولا وحيله ولا لعنة ذكره وحتى صلاة دحين كل لعنة ذكرين النبي نواتو مرتي ورسل اللهم إلعن إله اللعنة مركب في مثل قبائل العربية يعني نمن مارتي اكرامات بن ابي سفيان iyo niman maar hogaamiyaal gaala ayuu magacaabay Umar bin Khattab sidoo kale quruudka waxa la yiri waa kul aanay jiray dad gaala marka dad muslimiinta marka saas markay qaar kood ka sugan oo in wadada saas ay jirto marka la laanadi karo gaalka macayinka qaarna waxay leeyihiin qofka macayinka oo gaalka lama laanadi karo maxaa yeelay inuu tawakkana dhici karto islaamo laanadan gaaladana waxa la sheegay waa hadii ku dhintaan baliir wama tuwahum kufar hadii dhintaan iyo gaala marka ina la laanadin baaran mar haduu nool yahay qaarna leeyihiin oo hebel laanadin laakiin guud ahaan loo yiraahdo la'natullahi 'ala al-kaafiriin iyo 'ala al-zaalimiin iyo 'ala al-kaadibiin iyo wala oran kara
laakiin hebel allah lacnayo inaan la oran qaarna rajaxayaan marka haddii laakiin gaalnimo uu ku dhinto waxaa la yidhi kuwaas korkooda waxaa ahaatay lacnatullaahi waalmalaa'ikati waannaasi ajmaciin khaalidiina xaal ay yihiin khaalidiina fiiha oo ku dhex waarahayaan maaragtay naartaas iyo lacnada allah laa yukhafafu laga fogeyn mayo canhum iyaga alcadaabu cadaabka laga fogeyn mayo cadaabka waxaa weye cadaab aan marna laga fogeynin maalina laga qaboojinayn walaa hum iyaguna ma aha bali yundaruuna kuwa loo kaadinayo oo wax yar nafta la oranayo oo wax yar laga deynayo ma ahan bali cadaabkiina mar la fogeyn mayo iyagiina marna laga degdhegi maayo oo loo kaadin maayo waxaa weye cadaab joogto ah oo aan la fogeynayo bal sii ziyaadaya kor usii socda ayaa lagu cadaabaya wa ilaahukum ilaahun waaxidu wa ilaahukum ilaahiinu ilaahun ilaah weeye waaxidun oo mid ah laa ilaaha ilaahna ma jiro ilaa huwa isagaan ahayn arraxmaanu raxmaanka weeye ilaahiinu arraxiimu raxiimka ah ka raxmadiisu waasaca tahay oo ballaaran tahay waraxmatii wasacat kulla shay raxiimkana ah oo raxmadiisa maaragtay aakhiro u gaaryeelahaya ahlul iimaanka u gaaryeelaya marka ilaah waxa weeye waa midka awoodda weyn la weye oo suldaanka leh ilaah waxaa kaloo weeye midka maaragtay la caabudayo oo la adeecayo waa ilaah alladii yudaacu walaa yucsaa lahu amr aan lagu caasiyen marka cibaadada iyo daacada iyo awoodduna waa isku xiran yihiin sideedaba waxaa la adeecaa ama la caabudaa ama loo duloobaa waa cid awood lagu malaynayo waa sidaas cid awood maaragtay lagu malaynayo way cidda la adeeco ama loo duloobo ama khayr laga rajeeyo ama sharkiisa laga magangalo laga baqo waa mid cid awood loo malaynayo wey marka allah subxaana watacaala waxa weeye waa midka maaragtay mutafarid bisuldaan suldaankii awoodoo dhan ba waa midka keligii leeyahay wey kownkaasoo dhan allah baa iskale daabad walbaba waxa weeye waa addoon allah oo allah baa sooda ka haya wax walba isaga abuuray siduu doono ilahay wax walba ka yeeli karaa calaa kulli shayin qadiir weye maa min daabatin ilaa huwa aakhidun binaasiyatiha daabad walba soodu ka hayaabal awoodda kownkaas o dhan marka allah bay gacanta ugu jirtaa isaga wada abuuray hadduu rabo waa wada baabi'in karaa khalqigaasoo dhan ilahay wuxuu yidhi in yashaa yuhibkum waya'ti bikhalqin jadiid ilahay hadduu rabo intuu idinla tago idinkoo dhan idin baabi'iyo ayuu wuxuu keeni karaa khalqi cusub buu keeni karaa wamaa dalika cala allahi bicasiiz arrintana allah kuma adka bali marka allah awoodii o dhan isagaa iska leh oo qur-aanka wuxuuna barayaa cid kaloo awoodla inayn jirinba maarata makhluuqaadkao dhanna addoommo yihiin sidii loo abuuray samada iyo arlada iyo sidii loo abuuray dadka iyo waxoo dhan addoommo allah yihiin baa layna baraya haddii marka allah subxaana watacaala keligii uu yahay ilaah yahay oo suldaan iyo awood keligi leeyahay marka waxa weeye cid kale oo marka la caabudo oo loo duloobo oo laga amar qaato oo la adeeco oo laga shareeco qaato marka ma jirto maxaa yeelay suldaanka runta waa allah subxana watacaala sidaa awoodda iskale marka in cubuudiyadii marka qofka addoonkan cidda uu hogaansami lahaa inuu allah ka dhigto oo cidda uu adeecahay inuu allah ka dhigto marka waajib ku amaana marka waa isku xiran yihiin tawxiid aluluhiya tawxiid arububiya waa isku xiran yihiin cidda rabbiga oo koonkaana abuurtay oo awoodda sare leh waa in sida keliya laga amar qaato wey ilaahay subxaana watacaala markuu dhulkaa abuuray oo dadkaa abuuray oo dadkii haddana kama dhex tegina waxa weye ilaahay subxana watacaala kitaab uu dhex dhigay oo wuxuu yidhi kitaabkaa raac waa xukumay maana shareecu siiyey wuxuu yidhi shareecadeeda raaca aniga keliyana ee caabuday waa allah yidhi yani anlaa tacbudu shaydaana inahu lakum caduwun mubiinun waan icbuduunii haadaa siraadu lmustaqiim nebiyaal buu soo diray nebiyaashaas wuxuu yidhi waxaan usoo diray in la adeeco wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa liyudaaca biidni illah marka ilaahay subxana watacaala addoommadiisii markuu abuuray shareecadiina waa siiyey wuxuuna yidhi aniga iga tala qaata aniga keliyana boqorkiiniya marka dadkii waxa weye iyagaa kufriya markaa oo qaarkood waxay gaaraan inay yidhahdaan annaga keliya talinayna oo qofba uu yidhahdo meel anaa ka talinhayo ama waddankan anaa ka talinhayo shareecadeeda keliya soconaysa inay yidhahdaan marka shareeco walba bini aadam laga qaataa waxa weeye waa qirid la qirahayo la ictiraafahayo ilaahnimo loo ictiraafayo noqonaysaa haddii la diido shareeco bini aadam oo dhanna waxa weeye waa allah keliya shareecada loo ictiraafana waa islaamkii iyo tawxiidkii wey allahu ilaahnimadiisa la qiro oo ilaahyada kalena la nafiyo wey ilaahukum ilaahun waaxidun markii la yidhi waxaa kaloo la yidhi laa ilaaha illaa huwa kuwa kalena waa la diiday aalihada marka ardayga ah oo dhulkan jooga ama ha ahaato kuwa sanamyada iyo maarata qubuuraha waxaa la caabudayo oo khayrka laga rajeynayo ama shirkooda laga baqayo ama ha ahaadaan kuwa dawaaqiidka oo doonaya in iyagu taliyaan oo axkaam ay soo dejiyaan oo waajibaad iyo nawaahi ay la yimaadaan labadaba waxa weye waa la nahiyinayaa laa ilaaha illaa huwa weye macnaha ilaahyo aaliha maayo addoommaadkiis waa in addoonnimo keliya loo rumaysnaado kuwaas allah keliyana laga amar qaato ma arrintaa marka nebiyada ilaahay la yimaadeen waxa u daliil ah maaragtay oo dadka daliil looga dhigi jiray waxa weeye waa aayaadka kowniga ah aayadaha kownka ka muuqda ayaa daliil u ah tawxiidka nebiyadu noogu yeerayaan in allah la waxido oo allah keliya loo duloobo oo loo hogaansamo arrintaas inay xaq tahay waxaa ka akhrisanaysaa baa layidhi kownkan baa ka akhrisanaysa sidaa daraaddeed baa waxaa lagu xijiyey marka aayaadkii kowniga ahaa ilaahay inoo soo bandhigay
وهو الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض يعني أبوريتان كالسماوات كأرلدا لحظة وضوحة كسوغا إيه واختلاف الليل والنهار يعني اختلاف الليل والنهار استوى مركة مارسة همينك إيمان انت اسكو حكسنايا والفلك الدنيا التي تجري كأردي سبالي في البحر بدا لحظة ولا أردي بما ينفع الناس وحدتك واحترها هي دنياها بدا مرها هي أوسيدة ما ينفع الناس وحدتك واحترها هي وحيالي إنسان كأبهنا لغو قادها هي ومجالك اللي لوجيني وبدا كشيس اللوجيني وما أنزل الله يوحى الله سودتي من السماء السماء كسودتي من ماء وبيئة إلى سودتي الرب سودتي فأحيا وكنوا لي به الأرض وكنوا لي بعد موتها لما شكدي وبط فيها وكفى فيه مركع فيها أربع دحدة من كل دابة والبيلاء كفى فيه النفلي دابة وكل ما يدب على ظهر الأرض وحو الباء كدريرها يويرلوها كركي زي الصعانية إنسان كي حيوان كي وحو الباء ماركي نفلة أو صعانها يروها كركي حتى حشرات كيرا هذا كتير وبط فيها من كل دابة وتصريف الرياح يدلجدين الضبيلها ومرنا يكون إيمانيس وكفر مرنا يكون إيمانيس وغوي وهذا لنا يكون مرة ربنا الراب وحل إيمانيس مركز الضبيلها الجدجدين يوسح هذه ضرورها المستخري لقول لي لو استخري بين السماء والأرض السماء أهلها دحوة أرمها صنوح وجرى بالله آيات دحوة وجرى لقوم يعقلون قوم حجرنا وعقل له آيات وجرى بالله مركا الله سبحانه وتعالى مركا ورئيسا إنه واحد يهي إله واحد يهي أي آيات أيهين ودليل أيهين سيدة أيهين وحويا لي إنسان كان ومخلوق ولا أبوري إنسان كان لكن مركا الأبوري وحلا يدي من أنكري تاغنين يكون كان كلا أبعان ووحو كحرين نلوشي سدولك يكحران تاي نلوش دولك هدي لغا ورئيسيو نولان ماي هدي جيديه دولك كسو بحاي لوايو نولان ماي حوليه وحا دولك كرمر هاي هدي لوايو نولان ماي نلوشي سمركا وحا كحران تاي dhulkii ku xiran samadina waa ku xiran oo roobka cirka ka imaanaya dil waay insaanka noolaan may waraxdaas imaanaysa subax walba hadii la waay insaanka noolaan may insaanka marka waxa laga dhigay mid yaani noloshiisa ku xiran tahay koonka kale marka waxa meesha marka laga garan karaa qofka xataa waxa weey hadii xataa iska cilmiiriyo wuxuu garanayaa insaankan iyo dhulkan iyo samadan iyo geedahan iyo xoolahan iyo inay yihiin hal sanco isku wada saynayeen ay ahayn wax la kala leeyahay oo ilaahiyo kala duwan ay kala leeyihiin inay ahayn buu garanaya حيا هدي إلهي كلا ليهن مرضي لتجلاهين وحولي يعني ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق بإلهه إله البحر لتجلاها وشبع أبورتي هدي إلهي كلا ليهن لما أنكم مرضي حمال الله معه أو مرضى نضر بوسى لتجلاها وشيسي لكن ما دام يكون كان مرنا إسخلافين والنظام كثير إسكحرية وقفتي بالعالم تعوتون ولا كرين إلا ما رتكون كان إنه كله اليمان marka waxa weeye rabbiga insaanku waa rabbiga dhulka waana rabbiga cirka waa rabbiga qoraxda waa rabbiga maarjiida rabbuna rabbus samawati wal ardi biira mu'minin rabbiga waa rabbiga samawati karna marka arrimaha aayaadka suuniga hadda leeno sheegay waxa ka muuqda marka waxa weeye wahdaaniyatullah allah inuu waaxid yahay oo koonkan oo dhan hal ilaah inuu maamulayo ayaa laga garanay habeenkii baan weligood bedeli maayo weeyay nabi nuux macnaha aayadaha soo tusayay nabi maxamed aayadaha soo tusayay macnaha nabiyaashaas waqti dheer baa u dhaxay إلى النبي آدم لقب له إلى ما أنت النظام كون كذا تسوي معه ضد أرلا كورنول أرلا كون تفاعها يا أو سماها اسمه تسوي هاي الرب أو قرحنا الأصل بحث يسكاها هاي بحثوا دليل ويهين الله سبحانه وتعالى أود يسوي دليل ويهين أو سماوات كأرلا أو إنسان كل واحد لقي وكون يا إنسان إنسان كلا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أو إنسان كل واحد كون أو إنسان السماوات كأرلا مرت الله سبحانه وتعالى وأوري سماوات يا أرلا يهمين كم معنى إسدوم براه يا أوري ودنيها يبدأ أوري أو روب كامر بدو كينية أو جدها صوت كينية أو نفلها بيان أرض كفابية ضبيش كينية ضروري كينية ربنا كون كاسر ساود الشيء مرة لبعض نوادي كراوي ما كان ولا قادني مرة آيات حجري له قدرة الله يأوجه شيء الله يأوجه على كل شيء قدير يعني وكون كان وأوري مرة لبعض نواشوع عليه كرا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه بالله الله وكون كان أوري وأنا سوء علينا يا سوء علينا كان سهلا حيل وحر لو أبوري أو غارتي أبورست وسالنتي لكن وحى ودرنتي عقلي بنانك لو فيريو وحنا ولي جيت هوري لو أبوري فعلى جمرة لكن وح لا أبوري شيء مركر لا أبوري لا أبوري مركر قدرة الله كم مقتما من أركان بالله يعلم يرى أن الله الذي خلق السماوات والأرض ربي أبوري سماوات الأرض ولم يعي بخلقهن أو أن مارس الخلق ولا كعاجزين إنه أود إليها إنه يوكل أبوه هذا القرآن كدور من معناها وجرا
waxa kaloo ka muuqda maarag cilmiga allah baa ka muuqda si ilaahay caliim u yahay baa ka muuqata oo waxaasoo dhan waxa weeye cilmi baa lagu sameeyey wey insaankan xaajaadkiisuna ilaahay waa ogyahay ilaa allah subxaana watacaala waxa insaanka u baahan yahay waa ogyahay haddii xataa iftiin u waayo indhihiisa shaqayn maayaan insaanka indhaha xataa waxay la shaqaynayaan waa iftiinka qoraxda iyo la shaqaynayaan iyo nalka iyo waxaa banaanka ah oo kownkaas kale la shaqaynayaan indhihi haddii iftiin dhin la waayo insaanka indhihiisa soo faa'iidaysanaya waxba arki maayaan mugdi bay noqonayaan marka allah subxaana watacaala waa caliim indhihii u siiyey samcigii u siiyey afkii u siiyey yani isagoo dhan wuxuu abuuray mid maaragta ku noolaan kara kownkaa baa laga dhigay marka insaanku wuxuu malaynayaa baa liya allam yarahu axadun inaa cidna arkayn markaasuu ilahay wuxuu yidhi alam najcal lahu caynayn wa lisaanan wa shafatayn wahadaynaahu najdayn carabkaagaas iyo bashimahaagaas iyo indhahagaas lagu yeelay oo waxaa ku garan kartaa in lagu og yahay oo lagaa warqabo indhahaas lagu yeelay saa ugu baahan tahay waxaa ka garan kartaa ilahay inuu naxariis badan yahay oo ku og yahay caliim yahay marka raxmadda ilahay waa ka muuqataa sida insaanka xaajaadkiisii oo dhan loogu diyaariyey wa aataakum min kulli maa sa'altumuuhu bali ilahay wuxuu idin siiyey wax allaale waxaad u baahnaydeen oo allah aad ka dalabteen ilahay waa idin diyaariyey bali wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha nicmada allahna ma koobi kartaan marka koonkan marxaa laydin kusoo bandhigahayaa aayaadkaas waxay daliil u yihiin allah subxaana watacaala waxdaaniyadiisi iyo allah qudradiisii iyo allah cilmigiisii iyo naxariistiisii way daliil u yihiin wa min annaasi dadkana waxaa ka mida baa layidhi man yatakhidu duul yeelanaya min duuni illaahi allah sukadii andaadan andaad yeelanaya iyadoo xaqiiqaduna sida kor lagu soo sheegay ay tahay oo ilaahu uu yahay ilaah waaxid ah wa ilaahukum ilaahu waaxidun aayaadkaa koonigaan ay daliil u yihiin inuu kownkaas uu hal ilaah leeyahay oo hal nidaam uu maaragtay adeecsan yahay iyadoo xaqiiqadu sidaa tahay allah wuxuu yidhi dadkana waxaa ka mid ah qaar yeelanaya min duuni illaahi allah sukadii andaadan kuwo allah ay la fac yeelahayaan yuxibuunahum ay jeclaanahayaan ka xubbillaahi sida maaragtay allah loo jeclaado kale ay u jeclaanayaan andaad bay yeelanayaan u malaynayaan inay nafac leeyihiin oo ay dhib celin karaan oo waxtar keeni karaan ay u malaynayaan bay samaysanayaan andaad ama waxay samaysanayaan andaad ay adeecahayaan oo maarata wax allaale wixii ay faraan ay yeelahayaan oo jeclaanta waxay ku muuqataa raacitaanka weye oo qofka hadduu maarata amarka allah wax walba ka hormarinayo allah buu jecel yahay wey qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allahu wayakfir lakum dunuubakum haddaad allah maarata yani jeceshihiin raaca baa layidhi oo nebiga raaca allahna waa idin jeclaanahaya waana idin dambi dhaafahaya qul adiicu llaha warasuula adeeca allahi rasuulka fain tawallow faina allaha laa yuxibu alkaafiriin imaam shaaficida isaguna saasoo kale wuxuu yidhi maaratay ma waxaad sheeganaysaa yani allah miyaad caasiyaysaa wa anta taddaci xubahu yani atacsil ilaaha wa anta taddaci xubahu ma waxaad sheeganaysaa allah baa caasiyaysaa adoo sheegana inaad jeceshahay waa qiyaas wuxuu leeyahay maarata arrintaa xunbi low kaana xubuka saadiqan la adactahu haddii jacaylka uu ahaan lahaa mid run ah waa adeeci lahayd ina almuxiba liman yuxibu mudiic qofku cidda uu jecel yahay waa adeecaa marka ilaahay subxaana watacaala raacitaankii la raacayay baa waxay daliil u tahay in la jecel yahay haddii marka andaad iyo madax iyo boqorro iyo la samaysto oo la jecel yahay oo macnaha la raacayo amarkooda oo kii allah laga horumarinayo macnaha waxa weeye marka waa shirki oo macnaha allah maxabadii loo khaalis yeeli lahaa ayaa la wadaajiyey bay noqonaysa qofkaa mid buu sameeyey waxaa la rabaa qofka allah inuu jeclaado jacaylkaasna uu ku soo baxo raacitaanka maarata amarka allah oo amarka allah wax walba laga hormariyey haddii laakiin allah amarkiisao dhan aa iska turtay oo ilaahay wuxuu yidhi ba aadan ogeyn oo kitaabka ilahay dhabarka aa ka risid nimankii madaxda ahaana maxay yidhahdeen maalin walba usuka la haysid oo fulinaysid waxay yidhahdeen marka waxa weeye waa adigu waxaa noqonaysaa oo mushrik oo maxabadii baad shariik u samaysay marka oo ilahay keyrkii baad jeclaatay oo raacday baad noqonaysa andaad baad samaysay wa min annaasi man yatakidu min duuni illaahi andaadan yuxibuunahum ay jecel yihiin baa lii ka xub illaahi sida maaragtay jeclaanta allah oo kale ay u jecel yihiin oo laba sida marka waa loo qaadi karaa marka macnaha aayadda waxay noqonaysaa yuxibuunahum way jecel yihiin andaadaas ka xubbillaahi sida allah u jecel yihiin oo allahna iyagoo jecel bay haddana shirki sameeyeen oo andaadiina sida allah bay u jeclaadeen oo mushrikiin bay noqdeen ama waxa weeye andaadaas bayba jecel yihiin ka xubbillaahi sida dadku allah u jeclaado mu'miniinta ah ay allah u jeclaadaan oo u raacaan bay andaadaas maaragtay yani u jeclaadeen oo u raaceen waaladiina aamanuu kuwa allah rumeeyey baa se ashaddu xubban daran baa layidhi xubban xagga jeclaanta lilaahi allah jeclaantoodana waxay kusoo baxaysaa itibaaci weye raacitaankii alimaam alxasan albasri baa wuxuu yidhi qowm baa ilaahay imtixaamay waxay sheegteen buu yidhi in allah jecel yihiin markaabaa waxaa la yidhi in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah haddaad allah jeceshin raaca allah waa idin jeclaanahaya wayakfir lakum dunuubakum wallahu gafuurun raxiim qul adiicu llaha warasuula adeeca allahi rasuulka fain tawallow hadday jeestaan oo daacada laga waayo fa in allaha laa yuxibu alkaafiriin oo markaa jeclaantoodana waa been wey dad sidaasaa jira macnaa iyadoo horey looga soo sheekeeyey marka tawxiidka iyo adiladiisii lasoo sheegay
فإلهي وحي ردد انحرافة أيها شراء وساء الله والله إيالها يا أندادا وحال الحديث لها رسولك صلى الله عليه وسلم لو يدي لي أي ذنب أعظم عند الله فكاس وحي وحوي أن تجعل لله ندا وهو خلقك يعني الذنب الذنبيل هو وحوي ويري إن الله أسمي سند يسوق أبوري ولو يرى الذين ظلموا هذي أرك الهايين بالله يرى الذين ظلموا هو ظلم يسمي وأدونك ما أنت تجوا هذي أرك الهايين إذ وقت يرون العذاب عذاب كأرك دونا مركا لعلموا وحي أذان الهايين بالير هذي أرك الهايين تاس مركا وحي أذان الهايين لعلموا بهذا فقر سون بال أن القوة لله جميعا قوة ودم إن الله ليه وسلطانك أود أن الله إنه ليه جميعا جبيهان وأن الله إنه ليه شديد العذاب مثل عذاب الشديد في ودريه تاسي مركا أذان الهايين بال مركا ضدك مسلمين في غير ضد بقاء أخي ولو يرى أخي أرنا واحد أخيين ولو ترى أو غير شام غير مدينة سياسة أخي شرين بلي ولو ترى هذا أرك الهيد يعني والنبي قال الله مركا الذين ظلموا قوة ظالمين تأه إذ يرون العذاب وقت عذاب يعني الهرج عذاب أي لكلمان مركا واحد أقال الهيد أن القوة لله جميعا قوة بين أصلنا في الله وأن الله إنه شديد العذاب رب العذاب شديد فيه كذا قالنا مركز الشرك كان وحوي وشركه في المحبة والاتباع ويسكو حرين عدة للشعليه وعدة للرعسين ولا بيعين طبعا ساء الله وحوي ضدك هذا أدونك والوس فيسين خلق يمان تكون والأدونك عن بانكود سيدا يكسل الماميهن ما طبعا حتى وحوي يكون عالم إسلامي لو يقان إسلامي مقع قرحه بلان وساء ومحنا بيهي هو جانسان والله كلي هو جانسان ويمقع عمار عالم الإسلامي عالم الله كلي هو جانس وعدت عن كابر قادني ويمقع عمار مقع عمي يستاهلان كوبلا maxaa yeelay waxay u hoggaansan yihiin niman ilmaaniyiin oo sharcada Allah oo dhan ku jeesay la dagaalamay oo dadka Allah subhanahu wa ta'ala hal adeeco oo kaliya hal raaco oranayana oo arkaya dad sufahaa inay yihiin oo in la laayo oo loo naxariisan bay arkayaan marka dadka waxa weeye magaca qurux badan iyo xaq uma walahan ma waxay raacsan yihiin waxa weeye andaad bay samaysteen niman jabaabira ay raacsan yihiin oo nin wadciyo oo gaar soo dejiyeen waa qaateen kuwa ay raacsan yihiin marka maalinta markii aakhiro ilaahay subhanahu wa ta'ala gaar kulmiyo oo cadaabka ay la kulmaan baa laga sii sheekeynayaa id waqti baa la tabarraa ay kabari noqon doonaan alladina tubi'u kulli la raacay oo shurakaada laga dhigtay andaada laga dhigtay adduunkan oo amarkooda la adeeci jiray amarkooda la qiimeyn jiray Allah amarkiisa laga tagi jiray nimanka sidaas ahaa oo alladina tubi'u kulli la raacay oo madaxda ahaa oo waxay kabari noqonayaan min alladina tabi'u kulli raacay taabiciintii kabari noqonayaan ورأوا العذاب وحينا أركهيان بأي العذاب عذابكي وتقضعت وحا قوة هي بأي بهم الأسباب أسبابتي أبدا حيثين وقوة أسبابتي مركو الأدون كان اسكوية في محايا هاي قرابة النمو يمارع قبيل يمارك محيابها يأدون لسسين أي موددي يأرحامتي ورما قوة بني معه تقضعت بهم الأسباب وأسبابت وحاوي المودة والأرحام والموددي يرحميدي يمارك اسكو حريرين يأدون كان ووحي اسكو قبيلة أما اسكو قومية واحد أركز أو إسراعها أسباب اسكو كينيس waxaas oo dhan maalinta waa la waayahay naf walba waxay noqonaysaa mid kaligeed oordaysa oo qofka aabihi iyo hooyadii iyo xataa hadii lagu furanayo marka cadaabka laga saarayo aabaha hooyada ma la geliyo hadii la yiraahdo uu hal yahay cadaabka xanuunkiisa macnaha saas uu noqonayaa meeshaas qof walba kaligiisu iimaanayaa wala qad jitumuna furada kama khalaqnaakum awwala marra wallahi waxaad noo timaadeen idinko mid ah sidaan markii hore idin abuurnay maalinta waxa weeye wax nasab iyo mijraan maarka faydaan nufiqa fi suuri hadii marsuurka la afuufo fala ansaaba baynahum bal wax ansaab iyo usbuun nasab sheeganayo ma jirto ولا يتساءلون من يسودين ين أو العرك ما يلي رغف أرنا يرير الحاجات شويان يرير هذا سكان كان يوحى أرنا وبابايا فلا أنساب بينهم بل ما ننسى النصب متشره لحظة ولا يتساءلون من يسودين ين بوقت ويسكيه لما يعني قفل بوحى اللي يري يعني النفس يسال شغلنا زمان لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه بل شأن يصدقه يقفل بأساء اسمه مشغولين ما ننسى أمرك ولا كالبرد لغنها إياه وقال وحي رايين الذين اتبعوه كل راعي ولا قبل النقضي كل بارة المستضعفين تيوي ملاحظة راعتنا نشري ووحي ضواقين سكراء يرادان اسكفوا لنسوا ديارك حتى أن يكون هكذا يعدي الله أبدر ويشق لهيان كل سداس أها وحي أورانا هيان لو أن لنا كرة هذه النوع أهان لها كرة يعني علم ومرسل هذه أدونك فصدنا واسين لها ونلعلن لها وتمنين ليان مر وحي تمنين هيان هذه مرنا لعين لها فنتبرأ منهم أن كبر النغنى ملحظا كما تبرأوا منا سليم مانسا وكبر النغنى كذلك سيدابوا يريهم الله أطفى يا أعمالهم أعماشوا يجروا حسرات عليهم مثل الليتية ويندامون
macnaha raacitaankii madaxda la raacsanaa oo ilaahay qeyrkii la raacsanaa oo laga amar qaadanayay maalinta waxay noqonaysaa xasaraad bali wax laga gurtay noqonaysaa oo laga shalaayo wamaa hum mana aha iyagu baa la yidhi ahaan mayaan bikhaarijiina kuwa ka baxaya min annaari naarta kuwa ka baxaya ahaan mayaane khaalijiin bay noqonayaan itibaaca bayna ku noqonayaan oo ay raaceen ilahay qeyrka marka aayadaha sida cad waxa weeye waxaa laga qaadanaya maarata dadka bani aadamka raacaya inaynu marnaba cuurdaar lahayn baa laga qaadanaya aayadaha maxaa yeelay insaanka allah subxaana watacaala waa karaameeyey kariim buu ka dhigay walaqad karamnaa bani aadama ilahi bani aadam waa karaameeyey waxamalnaahum fi lbari waalbaxri warazaqnaahum min adayibaat wafadalnaahum calaa kasiirin miman khalaqnaa tafdiila insaanka waa la karaameeyey caqli baa loo yeelay hanuun baa loo soo diray rasuul baa loo soo diray aayadihii ilaahay baa loo bayaamiyey marka ilaahayna wuxuu yidhi keligay iraac oo keligay amarkii qaado markaabuu wixii oo dhan ka tegey oo allah subxaana watacaala meeshii la rabay inuu allah ka baqo allahna rajeeyo ayuu makhluuq wuxuu noqday mid ka baqaayo rajeynayo shirkigaa marka isaga uu waddadaa raacay ayaa waxay ku kaliftay markaa makhluuq inuu askari u noqdo oo amar allaale amarkii la faro inuu iska yeelo yani waxbaba ayan ka niqaashinba mara yani sharciyada milatariga oo casrigan waxaa ka mid ah yani amarka fuli adigoo aan ka doodinba mara doodba kuma furnaba amarka dambena raac wax allah wixii lagu yidhaha waa fulina wax kastaa ahaadaan xabadda rida keliga waa iska ridaysaa iyay ku dhacaysaa ma dambiila ma istaahila mise ma istaahisho la isweydiin maayo macnaha waxa weeye waa dad karaamadoodiina meel bay iska dhigeen waxay raalli ku noqdeen inay mustadcafiin ahaadaan marka aakhiro loogu cuurdaari maayo dad baa hadda waxay yidhahdaan dadkan waa dad masaakiin oo la daciifsanayo oo laga awood badan yahay weye marka madaxdan dawaqiidka dembiga iska leh taas sidaas ma ahan waxa weeye istidcaafkaas daciifnimadaasaba jariime ah maxay daciif ku noqdeen iyagoo allah casiiza u yeray oo rabbi haniya u yeray aan waxba uga baahnayn allahna ku xirnaan karaan iyaga marka mujrimiina waa maarata aakhiro sidaasay odhanayaan kuwaani markay yidhahaan idinkaan lamiyey waxay leeyihiin bal kuntum mujrimiin idinkaan mujrimiin ahaa bal lam takunuu mu'miniin idinkaan mu'miniin ahayn bay ku leeyihin haddaad iimaan lahaan lahaydeen oo allah rumaysnaan lahaydeen anaga nama raacdeen bay ku odhanayaan sidoo kale wamaa hum bikhaarijiina min annaarina waxay tusaysaa itibaacaas inuu shirka akbar yahay naar maarata qofka uusan ka baxayn oo marna aan loo dhaafin hadduu qofku la yimaado aakhiro isagoo weligii raacsanaan jiray dad aan ilahay kitaabka ku socon oo hawo ku socda raacsanaan jiray hadduu aakhiro yimaado wuxuu noqonayaa kuwaan la yidhi wamaa hum bikhaarijiina min annaari buu ka mid noqonaya yaa ayuha nnaasu dad yahow buu allah yidhi kuluu cuna mima fi lardi arladan dhexdeeda wixii ahaaday xalaalan dayiban yani xalaalan dayiban ku cuna baa layihi xaal uu yahay xalaal oo uu yahay dayib marka cunada labada shardi baa muhiim ah markii maaragtay wax la cunayo waa inay labada shardi leeyihin cunada marka hore waxaa loo kala saaraa yani khabaa'is iyo dayibaad waxyaaba khabaa'is ah oo xunxun oo ilaahay reebay oo khamradii iyo khaansiirkii iyo baktigii iyo waxaaso dhan waxa la yihahdaa khaba'is yani jaadkii iyo waxaaso dhan waa khabaa'istay ka mid yihiin waxyaabaha marka khabaa'ista ah waa wax la xarimay oo nebi maxamed waxaa sifadiisa ka mid ahayd oo madahiro loo sheegay nebiga la diri doonaa marka u dambaysa inuu yahay mid maaragtay yuxillu lahum adayibaat wa yuxarimu calayhim alkhabaa'is waa mid dayibaadka u xalaaleynhaya oo dadka dayibaadka u banaynaya khabaa'istana ka xarimaya wey marka cunada waxaa raacaysa adiga nooca dayibaadka raacaysa khabaa'ista waa ka tegeysaa liajli aayadaha ilaahay dartood baa uga tegeysa dayibaadkii haddana waxaa la doonayaa inaa xalaalan ku kasbatid macnaa oo xalaal ay kugu yimaadaan oo cunadii dayibaadka ahayd haddaad soo dhacdid xataa soo boogtid xaaraan bay noqonaysaa kuma banaana haddii aad ribo kusoo qaadatid kuma banaana haddii aad dhaar beena iyo suuqii maarata ku ganacsatid oo khiyaano ku ganacsatid waxa weye xaaraan bay kaa noqonaya waxaa la doonayaa marka wuxuu inay marka hore dayib yihiin haddana inay haddana waddo sharci ah kusoo qaadatid wey marka mucaamalka dadka ahlu shirkiga dad baa maarata ku wareera yidhaha see dadka gaalada oo waxba iska dhowrayn see wax ma laga qaadan karaa ama cunada ma la cuni karaa marka laleeyahay oo kale gaalada waxaa la yidhahdaa wixii gacanta ay ku hayaan oo khabaa'is ah lagama qaato khamrada iyo khaasiirka iyo baktiga iyo waxaas o dhan laga qaadan maayo waa lagu nacayaa maxaa yeele waxa ama muslim ha ku siiyo ama gaal ha ku siiyo hadday wuxuu khabiis yihiin kuma banaanaba laakiin waxa kale oo dayibaadka ah iyagu hayaan lama yidhaaho markaa sharciga ma waafajiyeen siday kusoo qaateen sidee bay ahayd lama diba geli karo maxaa yeelay shareecadii maba rumaysnaba waa bilaa kitaab bay soconayaan kitaab uma celinayaan dhaqankoodo dhan kii xataa waxa weye aabihii dhaxalhaya dhaxalkii waxa weye aayadihii waafajin maayaan xeerar kale ay waafajinayaan ama waa isboogahayaan ama agoontii boogahayaan ama wax allahba kama baqahayaan waa isdhacahayaan qabiilo dhan baa xoolaheedo dhan mar lala wareegahaya saas iyaguna la soo wareegaya marka qaabka ay wax ku qaadanayaan maba la dabagala layir gaalada yahuudda iyadoo la ogyahay inay marka riba cunaan oo ilaahay ku tilmaamay oo la yidhi wa akhdihim riba waqad nuhuu canhu waxay qaateen baa ilahay yidhi ribo iyadoo laga reebay haddana muslimiinta waxbay ka gadan jireen waa nabiga calayhi salatu wasalaam yahuud baa diin ku lahaa markuu dhimanay waa laga gadan karaa marka waa lala mucaamali karaa mucaamaladu waa banaanta lamana dabagalo waxaan sharci ma kusoo qaatay laakiin waxaa la iska fiiriya keliya waxa khabiiska oo marka uu gacanta ku hayo ayaa lagu nacaa hadduu ku siiyo
ولا تتبعوا الراعين خطوات الشيطان خطوات كيسها الراعين إنه يسوي لكم وحدين عدو مبين عدو وإليه مبين وعداوة سمارة مبين توعدا خطوات الشيطان مركوا إسكبل أنتهي ووحى البوع مارك الشيطان وكوي رهي إنه كوي انحرافية دوني تحريم كي وكم ذا وحن حارانا هين إن العدو إسكبل وفتوى حارانا أو اعتقايسي وخطر هو حكمة خطوات الشيطان ابن مسعود بارسلين كدار في عنه مركا حلال أو ضفع عنايين فاشي محاد إنه نفسه عنه ويليس ويحيي وان كدار كنا عنه شيء تاسوحة خطوات الشيطان وتلاوين الشيطان في كال عنه ودارتا بين كفارة به مركا خطوات الشيطان وبلانتا مع حياة بلان الشيطان في راير بدك أقول لهم وحي يربو قفة أقوليسية مركا وحي يرعاديسوها دانا وحكا أقودرا ترفسي بس لا كلها فحال إلى بدعادو ووذيقة شركة ووضع شركة فوق جنس بدعو بالله يا مركب شركة على وضعها إنما يأمركم إن كلمة هي يأمركم وحي من أمرها السوء يحمام بين أمرها والفحشاء يفاحش بين أمرها والحمى بين أمرها ووحل هو منكر وإلهي أمرك خلاف سوء وأن تقولوا إن أتشكتان على الله أتشكتان ما لا تعلمون وحي من الأوين إن أتشكتان أرنت أروي ويمر الله سبحانه وتعالى أنا كبين أورا سيامرك أرنت أول معك كتاب waxaway iska hubi wax walba marka leedahay waxaas waa saas waa inaad wax daliilka taqaani oo aayadii ama xadiiska ay ku horkaceen oo aayadii xadiiska ka aragtay wax raacday way adigu ra'yigaagu inuu soo horeyn dad waxa jira inta wax jeclaado ornay sidaan diinta qabtaa hadana diinta daliil uga raadsadaa hawadooda horeysa la yiraahdo kuwa waxa la doonayaa hawadaadu inay nusuusta ka dambayso naska la bartaa nasku wuxuu ka reebay marka ogaad ayaa wada laga dhigtaa la yiraahdo xaq waa saas la yiraahdo naskaas sheegay qof marka waxa noqonaysa diintu ay kaxaynayso maartay diinta ka horeysa يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله مرك آيات الله وحلو معنا إننا إذنكم كهر مرين أو إذنا وحنا حلالين وحنا حرمين إذنكم قالوا قال الله سبحانه وتعالى وحنا إذا حلالين أما حرمين وحول مرك آياتها لو عليه ومنه قصة مرك آياتها إلهي سوى العلم ولا هي كتبة أحياء الدين أو خطر مرين الله سبحانه أورثه وكيف ترى لا إيمانك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وكوائر تعلمها هو وين الوهلة سوى آيات سورة الأعراف ويوحي الإمام ابن القيم آيات صح الوشة دنور تسوي كلا في ويرى على قبل إلى في وين بلوكر مريم قل وحكر هذا إنما حرم إن كلمة هي حرم وحرمي ربي بيت حرم ربي الفواحش ربي الفواحش وحرمي ما ظهر منها وح ظاهرة وكمل فواحشها وما بطن وح قصون هذا اسم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا بالوقت وأول سوي الله لو بين أور ولي الله بحساسي يو إلهي الشاف أورن دراد دتك وناسنا آد ونحكرين بالي مثل يرى سؤال عن لغة جواب علم جاه وحل يروى نحكرين وحي كبغايان إن أنت غلط شيئا غلط كان لو رقمه وإلى أنت غلط كان لو رقمه يصير الدم بيجي لو وما رحله هذا تابي تعرفين كرين بالي هذا دراد بغض يسكبي دين كرين من ده وحي ردك عن لكم وحي أهيان دل عن سؤال كده كتب دقين أو تجيب عن كتب دقين هذه له سؤال ويدي مثل فرح شعلان شري ولذلك إنه كافية ويسلوك ذلك كرين بالي إنه والبعث على إنه سوء عام سوء كلا الله سيد صحابة المارك وقبق كرين مارك إن إلهي سبحانه وتعالى شرعي في واحدة لكشيئا مروحة كرتي تابعين حتى سيئة صفايا هاي صحابة يفضيلين نبقى وحي المقالة كوفة اللي يجي المكان وحي يروح بعض سؤال علمي اللي يجي جوابه كان وحي يريا أول علم بدن بقالان كان وحي اللي علقمة أول علم بدن نك اللي يراه علقمة وحي واحد فوق أعرفها يا شباب شو وحي يروح ابن أبي الليلة آدي نكاس علم بدن بيرون نكاوت ابن أبي الليل وآدي ابن أبي الليل مرتي سؤال إن إذا شبه راه وحي علقمة آدي سي علقمة وحي أبو يوسف كادر كان يري مسروق آدي نك لو أسي دري مكاس دحات مسروق وتري مسروق ويسأل برا يقول دي سي علقمة آدي سي علقمة ويصدر ابن أبي الليل ويدري ابن أبي أبو يوسف كادر المحاسب يسي ابن الشبرمة آدي نك أفراد بوسيشة نك أفراد بوسي سي يجي جواب سي علقمة آدي علقمة يوسف كبلا مركي دم علقمة صنع قوي سوقس علقمة مركوين بوحي يري أساس عدي خلاص علقمة وحي يروح وبقى يعني سؤال متقنع waxay og yihiin bay qofka jawaabaha ku degdegaa inuu yahay dadka ugu jahilsan ashharu naas qof jaahil weey qofka ku dhiiran maartin wax walba soo ka jawaabo saxal oo u farabaxsanaya wixii qof jaahil waa khatar hay'ad waxaan waxa weey waa amar ilaahay la gudbinayo allahna hadii wax uu san soo raali kaain aad gudbisid waa shay khabiir ah وإذا قيل هدي لي يرى اللهم لو يرى أهل شركك اتبعوا راعة هدي لي يرى ما أنزل الله كان الله شو دي راعة هدي لي يرى قالوا وحي رهان بل نتبع وحن راعينا ما ألفينا كان كهلني عليه كركيس آباءنا أبياش الكتب سبنا ودغن يجي اعتقاد يجي أنا أبيال كتقرني راعينا
marka mushrikiintu waa muqalladiin baa layihahdaa jiilal hore raacsan yihiin dad hore waxay kasoo gaareen bay raacsan yihiin dadkaasaa marka qalbigooda ku weyn taqdiisu alaabaa walajdaad wey aabbayaal iyo awooyaal baa la weyneynayaa caadada ahlu shirkiga waa sidaas waa kala duwan tahay marka qofka saas ah iyo qof muslima oo mar qaldamay oo wax inay saas yihiin u meleeyo arrin xataa shirki ha ahaatay yiri waxaan armay saas tahay oo la yiri warmaya ka soog la yiri iyo layskuma qaldi karo dad saas oo maaragtay wadahaya aabbayaal kasoo gaareen waddadoodana ku qanacsan xaqiina inkiraya waa laba arrimood maa marka mushrikiinta saasa ilaahay subxana wataala ku sheegay caqligooda inay maaragtay aysan ka shaqaysiinayn ay isaga qanceen aabbayaal dhaqankoodii inay iska raacaan awalow kaana aabaa'uhum oo haddii aabbahood ahaana aabbayaashood hadday ahaayeen nabali laa yacqiluuna kuwa aan garanayn shay-an shayna walaa yahtaduuna aan waxba maaragtay hanuunsanayn oo haddii aabbayaal lunsanaayeenna ka warrama bal macnaha waxa weye mabaadida iskaga raacaysaa wey waa iyagii baa lagu tawjiihinaya wamahalu aladiina kafaruu masalka baaliya aladiina kafaruu kuwa kufriyey wuxuu la mid yahay ka masali aladii yanciqu sida mid u yeerahaya baa liyi bimaa laa yasmacu yani bimaa laa yafhamu midaan waxba fahmayn ilaa ducaa iyo yeerid maahane wanidaa'an iyo dhawaaq mayo wax kale aan garanayn qofka gaalada maaragta la hadlaayo waaninahaya oo doonaya maarata dadkaas inay wax fahmaan wuxuu la mid yahay nin xoolo u yeerahayo kale xooluhu inaad yeerisid waa ku maqlaayaan laakiin waxaad u ka rabtid maarata ma garanayaan sahaa-in qof la hadlaayo kale wayaalay summun bukmun cumyun sifadooda waa sidaa baaliya waa summun waa ka dhagaala yihiin bale xaqa oo xaq macnaha dad dhegeysta oo aayadaha ilahay inay dhegeystaan u jirtaasan ma aha bukmun weeye baa layidhi macnaha oo ma ahan baa layidhi dad xaq sheegahaya iyaga wax laga dhegeysanayo oo maaragtay hadal fiican oo xaqa ku hadlaayana ma aha cumyun waana indhalaa yihiin baa layidhi oo ma aha kuwo maaragtay aayadihii ilahay iyagu indhahooda ku firfiirinayana maaha fahum iyagu laa yacqiluuna waxba garan mahayaan bu allahi marka sifadan hadda kufaarta lagu tilmaamayo waxaan soo marray iyagoo munaafiqiinta lagu tilmaamayo oo suuradda bilowga aan kusoo marnay summun bukmun cumyun fahum laa yarjicuun ilahi yidhi waa sifo khatara maarata waxaa dhacda mararka qaarkood in dad ahlu tawxiid oo sheeganayo inay allah u hoggaansan yihiin oo ahlu islaam yihiin oo ilaahay amarkiisa keliya inay ku socdaan yani sheeganaya oo dadkan ugu yeerayo waa waxaa laga dhexelaya qof waxba aan baranay oo isagu cidna aan wax ka dhegeysanayn maarata oo intuu yimaado meel diin ilahay lagu sheegayaba aan imaanaynba maarata maanaa waa ka dhega xiran yahay wax inuu maqlo aayado maqlaba diyaar oo ma aha wax kaloo ku mashquulsanya qalbigiisa wax kaloo bixiyey isagiina dad waanin maayo oo khayr u sheegi maayo oo waa bukmun waa kuwa af xiran cidna wax u sheegi maayo wanaag u sheegi maayo oo ilaahay ka baq oran maayo xataa diin u akrin maayo oo labada qof waa isku mid maayo qofka dadka diinta tacliiminaya iyo qofka dadka ilaahay ka baqa leh oo waaninaya labaduba waa wanaagsan yihin marka isagu waa bukmun mana waaninayo cid oo khayr maaragtay u sheegi maayo baraarujin maayo tacliiminna maayo cumyunna weeye maaragtay oo waxba akrisan maayo isagii kitaab ilahay la kala bixi maayo keligii maaragtay mid iswadi kara ma ahano kutubada akrisanaya dadku iska dhex taaganya marka dhagihiisa iyo afkiisa iyo indhihiisa saas yihiin waa xiran yihin sida ilaahay sheegay oo waxaa loo leeyahay wax ka hadal badan ma lahan lakin waxaa laga wadaa macnaha xaqii bay ka dhiga xiran yihiin oo afkoodana ka xiran yahay indhahoodana ka xiran yihin baa laga wadaa waa sifa khatara marka oo qofkii waxaa lagu arko maaragtay la tuhmi karo inuu qofkaas uusan fiicnayn calaamadda mu'miniinta waxaa weeye aayadaha ilahay inay u jilicsan yihiin hadday maqlaanna waa ilmeynayaan baa laleeyahay waa dhacayaan sujuud bay la dhacayaan waa raacayaan lam yakiruu calayha summan wa cumyaanan ma noqdaan baa le hadii aayada ilahay lagu akriyo dhaqan bay yeelanayaan wey watawaasow bilxaq baa liya xaqay isu sheegaan oo xaqay ku hadlaan dadka xaqa bay u sheegaan mu'miniinta meelaha dikriga ilahay lagu hayana waa jecel yihiin waa yimaadaan waa dhegeystaan yani aayadaha ilahayna waa ku tadaburaan oo siiradooda waxa weeye waa cibrana waa cibro qaadasho yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa allah rumeeyo kulu cuna min dayibaati maa razaqnaakum dayibaadka maa razaqnaakum aan idinku irsaaqnay ka cuna ba allah yidhi ee khabaa'ista ka fogaada washkuruu lilaahi allahna ku shukriya oo dayibaadka markii laydin siiyo risqigaas ha u malayna cid kale inay idin siisay allah subxaana watacaala sidii ku shukriyaan in kuntum haddii aad tihiin iyaahu keligii tacbuduuna kuga caabudaya allah subxana watacaala kuga caabudahayo u hogaansamay oo waxidin haddaad tihiin allah subxana wataala ku shukriya aaliha baatila waxay qalbigiina ha ku xiranina wey inamaa xarama calaykum wuxuu idinka xarimay un almaytata baktigu allah idinka xarimay waddama dhiiggana waa idinka xarimay walaxma alkhinziiri hilibka khansiirkana waa idinka xarimay yani baktiga allah waa idinka xarimay baktiga waa iska noocyo badan yahay neefka keligii iska dhinta midka buurka ka soo dhaca midka maaragtay rida kale hardido oo iska dhinta midka usha lagu dilo waxaasoo dhan waa isku mid iyo midka dhurwaaga cuno iyo wixii bahalada kale cunaan iyo waa lamid baktigaasoo dhan waxa weye waa xaraam waa neef walboo dhinta min hayri zakaatin sharciya iyadoo aan si sharci loo diran dhinta wey wadama dhiiggana waa la xarimay oo daman masfuuxan bari dhiigga maaragtay oo shubmahayo neefka marka la birayo ka daadanayo oo xaaraan wey laakiin hilibka karsan wax yaryaroo ku jira waxba maaha
ولحم الخنزير يلبس خنزير كنا وحرام وحال يرادا dad baa sidan waxay yiraahdeen khanziirkii waxa la ogaaday inuu leeyahay dixrin maartay oo sida gunto kale u dheer oo qofkii cuna maartay hilibka khanziirka uu macnaha daciifayo oo shirkiisa dixrigaas u galayo ayay sidan kan ogaadeen gaalada oo markaas dad waxay moodeen ba ciladii Ilaahay u xarimayo inay tahay yaani sheer bahalka ku jira maartay dixriga markaas waxay yiraahdeen qalab koronto ah hadda la haystaa oo la dili kara bahalkaas hilibka ma banaanaanay marka kuwaas kale waxa way xigmadii adiga lagu ma sheegin ka fogow baa lagu yiri waxaana loogu jawaabay waxa la yiri hadda 1400 sano laga joogo nabiga kaleey salaatu salaam iyo ka badan markaaba waxa la ogaaday hal cilad oo khanziir ku leeyahay hadii intii kale la joogo waxa laga yaabaa cilado kala badan la ogaado adiga wixii Ilaahay ka carfiyo waana ka carfiyo xigmada ama garo ama garan marka laxmal khanziirna waa la ka xarimay wama uhilla iyo wixii loogu magacaabay bihi isaga la qeyr ilaahi Allah qeybta loogu magacaabay markii la bireenayay oo markii la bireenayo bismillaah loogu bireenayo waxa loogu bireeyay bismi al-masiix nabi ciise magaciisa ama awliyo magaceed dad awliyo leeyahay magacood ama kaniisada magaceeda baa lagu bireeyay waxa soo waa xaraam famanid durra qofkii loo dhibgeliyo غير باغ isoo aan baaq ahayn mid siisa yaani xaraanta u doonaya aan ahayn wala aadin mid xad gudbaayan aan ahayn ee dantu ay ku kalifto oo meel ku dhaca dhaqaaq waayo wax kale naftu ku xiriyana waayo kaas haduu cunugaay falaa isma alayhi dambi korkiisa ma ahaan inna allaha ghafuurun rahiim allah waa ghafuurun rahiim sabab waxay ku fasireen waxay yiraahdeen غير باغ waa inuu san baaq ahayn oo qof ka baxay baacada maartay imaamka muslimka ahayn wala aadin mid shaqto oo jid goynayaan oo san ahayn oo labadaas oo banaana baqtiga cunaan baad yiraahdeen laakiin tafsiirka waa laga saxan yahay sababta waxa way dadka inkastoo ay dambi ku jiraan haddana loo banayn ma inay isdilaan oo naftooda inay dilaan haddii naftooda dilaan laba dambi isku darsadeen dambiga hore oo gafka ahaa iyo naftooda ay dileen marka baqtiga iyo laftooda waa inay cunaan naftu ku celiyaan haddii dantu ku kalifto oo naftooda inay dilaan marna shariicadu amr ma soo macnuhu marka waxa way غير باغ waa mid kiisa aan u doonayn maartay inuu ku xadgudbo macnaha shaygan oo ziyaado soo xaraan doon oo san ahayn ee rabo in naftu kaliya ku celiyo wala aadin li xadgudbayaan oo san ahayn إعداد وتركيب الصور الفقير إلى الله أكرم عبد الفتاح علي فما أغضأت فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله وشيخ البرهان.